يا كسوة ما عاد لا فرماج ما أنت جماعة شيء من الأول هذيك ترى داود ياشا كاميرون نقص وجهه وعتان كذا نحمل هذه مدحوني هون هذا حتى الشباب كقيب قادرين إن دبوا حرية الشباب الدولة الفدرال هذا بيرجع الفرماجو والشعب كسومالي معوز لي هذا بيرجعين وعا هذا الولاقي أتكلافويس بري ما كان وضع كان كسون كرسي أترى وحي عاق جعلي لقى حي الأمد وكهركيني فير قرقور وحكر إسكلاف إذا ما ذي دبلة يمرصده ويرى تلفون اسكدبدرا كالي ورت ما بس واني مو سوريسن ورت aan cashayna badras bariis kulleysooyin iskadawada markay baxan hadana waa suucilna qorqoro farmaajo adi farmaajo baaga muddo wada inaa wada sheekaysiina balan hadii shabaab lu xurey qorqoro adi bees meelismiya ada qarankada waxaas naqmo shabaab aan la dagaalay finna Allah ku riday nimanka hadda ka shaqeynaa in furmaha laga soo baxo kansar Allah ku riday kuwan umada waa dhibeen bismillaahir rahmaanir rahiim kulantu wacan oo wanaagsan daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan waraysi gaar ah oo aynu magaalada Muqdisho kula yeelanayno siyaasi Maxamed Shiine kaas oo ka faarooda arrimaha siyaasadda Soomaaliya iyo amaanka waxa uu marti ku yahay barnaamijka diiradda farcade oo toddobaadkan aynu uga hadli doono arrimaha howlgallada dalka ka socda oo qaar ka mid deegaanada ay la wareegeen ciidamada qaranka dib looga soo laabtay oo ku mahad celinaya siyaasi Maxamed Shiine waxaad ku soo dhawaataa barnaamijka gaarka ah ee diiradda farcade ugu horeyn waa master maxamedow runtii adiga iyo barnaamijkaada iyo dadka kugu xiran ee Soomaaliyeed waa idin salaamaya waa kaaga mahad celinaa sida aad runtii wadanka dalka iyo dadka iyo aad ugu shaqaysid inta aan hadli karin aad u hadashid kuwa maxaan ku yiraahdaa mas'uuliyadda haaye maxaan ku yiraahdaa ummadda ay wax ka sugayaan saad u dhiirigelisid waa kaaga mahad celinaa waa ku mahad celinaa Shiine طبعا sidaan la socon dalka waxa ka socda howlgallo ka dhanaa al-shabaab oo ay hogaaminayaan dadka deegaanka iyo ciidanka dawladda sideed ugu horeen u aragtaa howlgallada wallahi waxaan u arkaa talaabo bogaadi mudan mid muujinayso in dadka Soomaaliyeed gaar ahaan dadkan koonfurdiga cadawga oo duldegan yahay in ay go'aan gaareen oo ay dhibtoodeen ilaahayna u soo diray dawlad kala shaqeysa si dadkan loo iskaga xoreyn lahaa oo cadawgan iskaga dhicin lahaa waxa ku amaanataa dawladda madaxweyne Xasan Sheekh iyo xukuumadda oo hogaamiyay Ra'iisul Wasaare Xamza Cabdi Barre iyo dadka deegaanka ee macawisleeda is abaabulay is xilqaam runtii waa gartay markaad eegto sida ay haatan u socda howlgallada ma yihiin ku guuleysan doono gabagabada maadaama hadda deegaano badan wali gacanta al-shabaab ay ku jiraan aad u maasan tahay sida hadda ay wax ku socdaan hadii lagu sii wado ani waxaan aaminsanahay in runtii laga guulgaarayo maxaan ku yiraahdaa wadankan oo xor noqonayo oo maxaan ku yiraahdaa shacab iyo dawlad is ogol oo is wato ay ka soo harayaan ama shabaab ha ahaado ama afku shabaab la ha ahaado waa la isku xoreynaa go'aan meel ka yaalo wadanka anaga iskale dad muslimiin aan nahay boqolkiiba boqol dad Soomaaliyeed oo wadankooda joogo oo nabad raba inay ku noolaadaan oo maxaan ku yiraahdaa inta dawladaha caalamka ama dadka caalamka nool ay u baahan in la mid ah u baahanay intaasna hadda waxa ii muuqdo waxa ka shaqeynaa waa iiga muuqata dawladdan hadda jirta Hirshabelle waa maamul si gaar ah uga faalooto madaxdoodana aad si gaar uga shaqeyso gobolka Hiiraan ayuu ka bilaabmay urdanka ugu horeeyay ee kacdoonka looga soo horjeedo al-shabaab iyo dadka deegaanka ay hogaaminayaan beelaha qayb kamid ah dagaalkoodu waa uu socdaa oo way dhaqaajeen oo deegaano badan ay la wareegeen laakiin deegaanka adiga si gaar ah uga soo jeedo isaga waxa laga muujinayaa muddooyinka ugu dambeeyay dhaliil ah in howlgalku aanu si sax ah u socon isla markaana deegaanada wali gacanta al-shabaab ku jiraan deegaanada aad ka soo jeeday kamid yihiin walaalo deegaanada ana ka soo jeeda ee howlgalka qabyada uu ka yahay waxa qabyo keena meel meeshan waxa fadhiyo ragii wadankan doorashiisa looga adkaaday ankaray fadhiyaan Facebook iyo WhatsApp ku soo hadlayeen dadkii maxaan ku yiraahdaa howlgalladaas wadi maxaan ku yiraahdaa is abaabuli ay niijibinayaan qaab kale wax uu sheegayaan war adinka hadii shalay wadankan shabaabka xoreey wayseen hadii maanta dawlad Soomaaliyeed oo Ilaahay u soo diray ummadan oo go'aan ku gaaray in cadawgan la iska hor qaado ama la iska dul qaado go'aan ku gaaray maxaad caqabad ugu tahay wixii aad qawaysay hadda laga shaqeynaayo maxaad caqabad ugu tahay waxa laga filayay inaad maadaama xukunka lagaaga
adkaada inaad ummadan u duceysid in maxaan ku ummadda dhiirigelisid inaad tuutaada xiratid inaad qaaraankan qaran ee shacabka iyo dowladda iyo cid walba ay iska aroorna aad qayb ku dirsatid ada qaaraankaada waxaas noqmo shabaab aan la dagaalin qaaraankaada wuxuu noqmo shabaab dad Soomaaliyeed oo la qaldi waaye waan ku soo celinayna aan la weerarin waanta adiga 6 sanaad ka shaqeey weysay oo hadda aad leedahay maxaan ku yiraahdaa waana lagu soo celinaa waan ma xabadaha shabaab looga saaray wadanka kuwa afku shabaablayaasha ah ee dowladoodii waxay qawaysay wax ka fiican hadda ay dowladan qabanoo hayso taasna u arko cuqdad iyo maxaan ku yiraahdaa meeshan ka tagna anaga gadaashan iyo fiicnaan miidin kale yeelay waan la iska keencelinaa yihiin siyaasiyiintaas aad leedahay Turkiga ay joogaan iyo Ankara aad leedahay waxa ay ka dambeeyaan inaan la dagaalamin al-shabaab taas ma ila qarsoonba ciidamada qaarkood furimaha laga soo bixin haya gada iyo jubooyinka la xiriiro haya hiirana la xiriiro haya galmudug waxa ka socda waa aragtay maanta iyo warbaahinta waxa la meel hebel laga soo baxay waxa ku howlan oo ka shaqeynaya waxa waaye nimankii wadanka joogi jiray aan kara joogo iyo ku kala kulanajiis la yiraahdo oo asagana maxaan ku yiraahdaa oo ilaahay wadanka fidno u soo diray shali gabdhii mataqaana wadankan gabdhihii wax u bartay u shaqeynay wuxuu ku sameeyay la ogyahay dadka hadda adiga shari ka dhigteen mid la dilo iyo mid la qaray iyo mid la gowrac iyo mid lacag loo qoro Facebook iyo ama la yiraahdo shari wadan ka dhigteen maanta wadanka waxa waaye mid lacag bixinay mid howlgalka hogaaminay xukuumad dhiirigelinaysa war wadanka waa idin ka darsaday sumcad xumo taariikh madow ayaad mataqaana wadanka aad ka galaysiin sababtoo ah cidda mas'uuliyad idin ku aaminay ma leh shiine wabxo ayaa deegaankii ugu dambeeyay ciidanka dawladda ay ka soo baxeen gaar ahaan ciidanka danab ayaa la sheegay in ka soo baxeen deegaanka danabna waxa maamulmay ka dhaxgalo waxa maamulo dawladda federaalka madaxweyne xasan sheekh maxamuud taliyaha ciidanka qalabka sida u ah sidee dadka ugu dhaadhicin kartaa madaxweyne farmaajo ayaa amar in laga soo saaro maxaan ku yiraahdaa feere dadkan Soomaalida waa is yaqaaniin ehel iyo adeer iyo abti iyo waalid la isku yahay dagaalada hagalina ka soo bax dhimayaan waxay dhahayaan waxa waaye waa kuwii laakiinta dhahay waa kuwii Twitter space ka qeylnay warkooda war la mid ah waxa aniga hadda wadanka joogi jiraan ka sheegay halal dagaal waa sax nimanka xasadiina waa iska celinayna laakiin hadda waxaan rabnaa in nidaamka wax laga bedelo oo nidaamka in wax laga bedelo adag idin matal nidaamka in wax laga bedelo dawladda u joogto madaxweyne xasan sheekh maalintii la doortay ilaa hadda 6 bilood ma gaarin 5 bilood xataa inuu gaariyo ma 4 bilood wax kale kama shaqeynoo nimanka in wadanka laga saaro ka shaqeynoo 6 bilood xad fadhiisay madaxtooyada aad jiiftay isbarmuuta lagu shiiday beesa ku aruureysay shabaab wax kama qabanin hatta shabaab dadkii wax ka qabanay caqabad ku noqonaysa mukaas anaga ma ka aqal yar wata magacaw siyaasiyiinta aad leedahay way ka dambeeyeen in ciidanka la fashiliyo howlgaladooda qafadeysina kamid kolonjiisa kamid dadka maxaan ku yiraahdaa farmaajo kamid ninkii hore Cabdi Saciid lalahay oo Turki baagamudo ko oo ninkuu Turki ku arko dhaha kaale maxaan ku yiraahdaa wadanka maxaa laga sheegay wax wanaagsan in ay kadib wax wanaagsan wadanka in laga sheegay way dhibaysaa dadkaas waa dad la yaqaan maxaan ku yiraahdaa wax laga aqbalayna ma aha dadka Soomaaliyeed waa qaan gaareen aqli ay leeyihiin damiirkooda shaqeynaa waxa kale fursada uu faa'iideysana ganacsatada Soomaaliyeed gaar ahaan ganacsatada koonfur degta ama ganacsatada gobolka Banaadir degta dib iyo dheef iyo khasaare iyagu ku jira wadankan ka soo qayb qaatay in xasiloonida yarta iyo dawladnimadan aan haysan in la helo ganacsiga ka shaqeysay oo hormuud ay kamid tahay hormuud anaga maxaan ku yiraahdaa inta ay wadanka u qabatay dawladii wadanka isbedel uma qaban ganacsatada noocaas in la jaa'ifeeyo oo la dhibaateeyo oo maxaan ku yiraahdaa ilmo yaro Ankara laga soo diray maamulka baraha bulshada ku propaganda ma aqbal hormuud hooyadii wadankan waa aabii wadankan waa dawladda federaalka dhawaan shir jiraayad ku qabatay magaalada Muqdisho waxaad sheegtay inuu ku soo wacay madaxweynihii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo bal maxaa idin dhaxmaray adiga Maxamed Cabdullaahi de Farmaajo aniga markuu madaxtooyada ku jiray dadka oo banaankan ugu tagay oo iloobay ee uu ka danaysan kamid ahaa markii oo
mandatekiisa 1 week 2 week ay ka dhineen waa is aragnay niman odayaal ka shaqeey inaan is aragno iyo waa kala dhunni iyo saan marka aan waxaan dhahay did waa lagu yaqaanaa waana dabiici siyaasiga Soomaaliya markuu dan gaaray inuu xaroodo wixii ka dambeeyay oo gadaal u fiirin waxba dhib ma lahan ku yiri soo dhow doorashan galahay maxaan ku yiraahdaa ogow hadan soo noqdo position fiican ku magacaabay oo yiri waxaan qarinaa ma jiraan niyo waxaan ku iri aan position kaamribi hada soo noqotidna ada xaniyaada fuul soo noqday oo ada intaqaana adkaati hadii laga adkaadana maxaan ku iri dawladii adkaata aniga dawladeeda ah ada adkaata soo noqotidna waa kula shaqeeyna aniga 5 sano ayaan kula shaqeynay wax dheef kugu taageerin waxaan kugu taageeray kaliya ina shaqaalaha reedka u fiicneed oo mushaarkooda bixinaysa inta kale ee dawladda ay ka shaqeynayso hal maalin kugu taageerin waa isoo wacay wuxuu ugu yeeraniyo maxaan ku yiraahdaa gaal jecel xilwan jeeso raadi maxaad la farmaajo maalinta jimcaha maalinta kooris oo isoo wacay qamiisay ahayd galabay ahayd nin kale odayo hadda mas'uul ah oo la yaqaan ayaa ila joogay asagana maxaan ku yiraahdaa oo soo wacay inaan isla joogno ma uusan ogeyn ninka kale qaraabana wuxuu wadaa campaign ah in maxaan ku yiraahdaa qabaa'ilaadkan weyn oo goboladooda degmooyinkooda la haysto inaysan maxaan ku yiraahdaa ay gacmaha dhulka dhigtaan oo rabaa oo gacmaha dhulka dhigamayna waa shaqeynayna nimanka waa iska saarayna adiga inta ku soo noqonay doorasho martii biri meesha ku soo noqon lahayd iska rabaa hadda soo noqoto haddaadan hadda shabaabka qayb qaadanin in dib u xoreynta shabaab aad dawladda federaalka aadan dhiirigelin farmaajo oo aad shacabka Soomaaliya macwiisley aadan dhiirigelin waxa hadda aad walaaqi aad ka dhaafayso biri markaad wadankan ku soo noqoto kursi raaw atrad wixii aqal jaclay dhagaxayal umada ka horkeeni cid daba ku aaminayna male wata shiina eedanta aad jeedinayso waa eedan weyn waxaad u jeedinaysaa madaxweyne 6 bilood qiyaastii moog xilka wadanka ugu sareeyay ee madaxtinimada waa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dadku waxay isugu jiraan kuwo su'aal ka keeni karo sida shiina uu madaxweynaha u soo waco oran karo gaal jecel iyo qabiilka كذا ومدحونا حد ني كرسي حتى حس الشيخ أنا إنه الصوع عذك ومدحونا الجمهورية نك أدري إنه كالصوع وعذكت نك محو هيا أصدقت كذي وين dadkii uu leeyahay hablo frintiidu aragtay waa furay imso jaawis nin meeshas joogo waa ninka inuu qalbiga waa ogtahay oo yaani ninka haduu kursi haye ima soo wacay laakiin ninka asxaabta dad rabo waxa dadka u raban waa dad umada ku fidnaynayo waa awla wadanka fidna ugu tagay dada guriyahooda laga bixi jiray dada maxaan ku leeyahay aragtida iyo naf imaan lagu laayahay oo la weyn jiray warda xasan shaqeeyay waa la simiyahay umada Soomaaliya والله حسن شيخ مقيم dadka inay sinaadaan dhacdi dawladnimadii sharcigana lagu sinaado asii dawladnimo ay koox lahayd way oo kii aniga warkii diiday maxkamad gobolka banaadir inta waa dhaa hebel waaran u soo jir laba birikid xasan ninka markay heshiiyaan waaranka ka laabo oo farmaajo dawladdiisa fasahadeeda iga dhaf marka siyaasad ahaan marka laga tago shiina ma la wadaagi kartaa daawadayaasha kaamirooyin baa nagu soo jeedo wicitaankeeda dhaxmar adiga iyo madaxweynaha hore waa loo wadaagi karaa laakiin waa privacy way asaga uu haya haduu soo bandhiga soo dhigo ana waa wada muuqaal inaan soo bandhigo oo aniga soo wada hadleen laakiin intaan ka badan ma ku sii fogaanay laakiin waa is ogyahay umada ha dhiirigeli ha ka dhaafo wicitaanka dadka madaxweynaha Hirshabelle Ali Guudlaaw wuxuu ka mid yahay madaxda muddada uu joogo madaxweynaha Farmaajo aad u la shaqeeyay hadda isaga iyo saraakiil kale lama shaqeeynin been waa aniga wiikaadi tan hada soo hadal qaat way fiicanta oo isoo xasuusisay ani Farmaajo arkay Fahada arkay Kolonjiisa arkay intay wadanka joogeen oo campaign-ka doorashada ay socotay
cali guudla waa u ciil qabeen hadday soo noqdaan waxay rabeen inay kursiga ka xayuubiyaan guddoonka baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisa ay adeegsadaan cali guudla xilka laga tuuro nin kale oo ayaga ay rabaan ay geystaan qorshoodu ahaa anigu fahad waa noolya maanta dambeynka sheega shiino madaxweynaha nalama shaqeeyo madaxweynaha nin abgaalow noqdi madaxweynaha xasan shiiqo uu kaambeyn gareyno haya maxaan ku yiraahdaa kursiga aamine allah u naxariistee sababta uu aamin kursigeeda uu dhagan yahay cali guudlaaba xasan shiiq maxaan ku yiraahdaa xasan shiiq uu noqday nin abgaalow aniga idheen aniga maanta idulka iyo horkeen waxaa kamid cabdinuur nin dhalinyaro waay waa heli karta xiriirkiisa weydii ma dhahday cali guudlaaba nin abgaalow noqday abgaalow u shaqeyno haya anaga inaan soo noqono kama shaqeyno haya cali guudlaaba xasan shiiq waxaan leeyahay cali guudlaaba waa ku takanoobi intaan ogaay nimankaas ay lahaayeen xasan shiiq cali guudlaaba wuxuu u shaqeeyaa xasan shiiq oo dhisto haya abgaalow noqday dhahayeen xasan shiiq haddaad damiir nool leedahay maamulkaas hirshabeelle maamulada kaaga duwanaada waa deegaankaadi waa meel lagaa jecel yahay aniga sideedaba runta anuu sheegaa lay dili karaa ma weyn been wax la yidhaha xag iga gey su-aashiidan ku soconaashiine taliyaal ciidan iyo xildhibaano hirshabeelle ah oo warbaahinta la hadlay qaarkood waxay ku eedeeyeen in dagaalka qaybo ka mid hiiraan ka socday inuu joojiyo uu amray madaxweynaha hirshabeelle been ikadaa'ib waayo kuwa amray in dagaalkaas cali guudlaabo dagaalkaas in la joojiyo cali guudlaabo information ma isku qaldayeen cali kamo tuutaa wato hadda furunta askartii iyo ciidamada iyo macawiisyada cambuurada la cunaya soo maaha in ka badan 40 iyo dhowr cisho wuxuu joogaa marka laga reebo shirkii golaha wadatashiga qaran inta ka dhacay oo dhulka safar dhulka uu ku soo galay mooyee inta kale meesha soo joogaa ana cali guudlaabo wixii daliil uu leeyahay anaa sheegay laakiin daliil lagu qanci karo ummadda la horkeeni karo aan aragno deegaankaasuu joogaa dib xarunta qayb ka yahay dagaal oo jooji iyo ku nacnac leh waa ku dadka wadanka doorashiisa lagu adkaado u shaqeeyo adiga iyo siyaasiyiinta ka mid tihiin beesha degta qaybo ka mid ah Soomaaliya gaar ahaan hiirana ka hadlayna ka soo jeeda haddii ragga kale lala hadlo yiri dagaalka jooji idinku maxay u aadeen u hogaamin dagaalkan lagu leeyahay al-shabaab annaga hadda maxaan ku yiraahdaa dhanka bari hiiraan barigiisa walaalehen xawaale waa sharfayeen xawaale fariina halkan uu diraa dadka maanta hoos ka xariiqay in qori la qaato shabaab in la dagaali karo dadka Soomaaliyeed tusay waaye galbeedka hiiraan dhiman galbeedka hiiraan waa lagu duulaa gaal jecel iyo jijeele iyo baadacada iyo xawaale iyo ciidamada xoogga iyo dowlad kirshay waa iswada kaashanayaan waa la xoreynaa hadda waxa lagu hooleeyay waa madaxweyne ku-xigeenka dhanka bari jiro iyo madaxweynaha dhanka shabeellaha dhex joogo labada furnaal iska horgeyna kadibna galbeedka hiiraan la aada haba yaraatay taas shaki ha ka qabino laakiin xildhibaanka deegaanka ka soo jeeda Daahir Amiin Jeeso waxa uu ka mid yahay siyaasiyiin bilooyin ka horgaaray deegaanka si dagaalka ay hogaamiyaan inkastoo aydan dib uga soo laabteen oo dagaalkana aan dhaqaaqin marka maxaa diiday in laba dhinac dagaalka si wadajir uga socdo tabartaas hadda dawladeena ma hayso annagana maxaan ku yiraahdaa tabartaas ma hayso labada dhinac hadda ma la wada furi kara hadda meelaba nimanka laga nadiifino haya iskoobiyaal loo taa la xaqooya Soomaa meesha dhiman galbeedka hiiraan waaye ilaa shabeellaha hoose imaad doontaan wayna dhacaysaa maalmaha soo socdana adika diin ku arki doono saacadii la soo dhaafay waxa aad loo eedeeyay taliyaha ciidanka xoogga General Oduwa ka uu lagu eedeeyay inuu amray in laga soo laabto deegaanada kala Nuur Dugle oo kamid ah deegaanada hoostaga Masaajid Ali Gaduud iyo wabxo ee gobolka Galgaduud madaxweynaha Hirshabeelle waxa kamid ah madaxda ku sugan Shabeellada Dhexe Nuur Dugle oo madaxweynuhu maalmo ka hor dadka deegaanka kula hadlay hadii laga soo baxay madaxweynuhu deegaanka uu joogo yaa loo saarin karaa eedda in deegaankaas laga soo baxo eedaas ma jirto waa xeelad ciidan way taliya xoog dalka iyo saraakiisha ciidanka xoog dalka iyo madaxda naga sareyso wax iyagu u yaalo way wixii xeelad ah waa gaar okay in deegaan dad ay ku dhinteen oo qiyaastii in ka badan 10 askari ugu yaraan ay ku dhinteen hanti ku baxday dadna ku dhaawacmeen gaadiidna lagu waayay in laba maalin kadib laga soo laabto ma waxa lagu tilmaami karaa xeelad dagaal finna Allah kurida nimanka hadda ka shaqeynaa in furimaha laga soo baxo kuwa hadda kuwaas ilaahay ayaa ummadan ku soo habaaray shabaab oo nagu dariyeen wax hadda in laga soo baxo oo meesha ii sheegay laga soo baxo
kansar allah ku rido kuwaan ummadda waa dhibeen wax ka xun shabaab allah ku sallada annaga waa isku tashanaynaa danteenaan qabsanaynaa ciidamadeenna waa haysanaa macawiisleedeenna waa abaabulina odayaasheenna iyo madaxdeenna heer dowlad goboleed iyo heer federaal waan horgalayna annaga waa soconayna looma joojinayo nin maxaan ku yidhahdaye waddanka ka maqan annaga maxaan ku yidhahdaa ma dhegaysanayno soo gabagabeynaa sidee ayay si wada jira ugu wada shaqayn karaan shacabka ciidamada iyo madaxda qaranka si loo soo gabagabeeyo deegaanada gacanta ay ku hayaan al-shabaab waxaan leeyahay haddii shacabka iyo dhaqankii odayaashii dhaqanka iyo shacabka iyo saraakiishii iyo dowlad goboleed ama dowladda federaalka heer federaal iyo heer dowlad goboleed ay is wada kaashanayaan hadda tubti iyo wadadii iyo wadiiqadii la mar lahaa madaxweyne xasan sheekh iyo saraakiisha ciidamada xoogga dalkan ka sugaynaa wixii ay nafaraan iyo qariidadii iyo shaxdii ay wadanka hogaaminayeen marka ay lala wadaagaan annaga dib u xoreynteen maalin ma istaagaysa kaa soconay ma jiraan dhinacan galmudug siyaasiyiin la oran kara waa ay la shaqeeyeen madaxweynihii hore qorqoor iyo farmaajo hal meel iskaga eg meesha iskaga egyiina kuu sheegaa haddii la yidhaahdo feeri qorqoor wax kale iska dhaaf ciidamadii duduble iyo murusade qabiil inaan magacaabo ma jeclaan laakiin walaalaheen murusade iyo walaalaheen duduble iyo qabaa'ilaadkii kale ee habar gidir ee dib u xoreynta gedo dib u xoreynta galmudug inay ka shaqeeyaan la rabo waa u yeera taleefanska dabadira kaali horta ma isoraysan horta aan cashayne badras bariis kulleysooyinaaska dawada markay baxaan haddana waa soo celinaa qoorqoor oo farmaajo adi iyo farmaajo baaga muddo wada inaan wada sheekaystiinaa ballan ka dhexbax ummadan dowlad goboleedka galmudug ha iska xoreeyaan cadow haddii shabaab la xoreeyo qoorqoor adi bees meelis miya ilaahay beeso kugu hawaar anoo ogahe ummadda dhaaf ha shaqaystaan ha iska celiyaan shabaab deegaankaas markuu xor noqdo canshuuraad qaaday ganacsiga furma waxaad hadda raadinay wax ka badan aad hela arniyo fahdi yaasiin reero xasan oo beeshanaad waa farmaajo nin mariixan waa warniyo nin hawiya tahay dadkaadi lagu dul fadhiya maalin burus madax loogu tumuhaya dadkan ciidamada iyo wabxa iyo meeshii sheeg ceelbur aadi aad soo celisi annaga waa ognahay annaga wax walba waa kula soconaa qorqoro mar dhow adi baagamuudaa sheekaysan doonaa wadankan taariikh madow ha ugu tegin waxaan kusoo gabagabaynaa ciddiyaan loo joojini dadkan koonfur dego gaar ahaan dadkan magaaladan muqdisho dega iyo gobolka banaadir degan mar cashuurtiina in la cuno mar hoteeladiina 5 star quruxda badnaa in maxaan ku yiraahdaa kooxo meel laga keenay aan aqoon ay dhaylo ku dhax cunaan mar maxaan ku yiraahdaa madax idin kale istaaga war shabaabkeedii ma fiican dadkii kale Soomaalidii kale maxaan ku yiraahdaa diriskii nala aha idin ma fiican warnimo dantiin hawiyo dantiin inta aqoonsataan kuwa maxaan ku yiraahdaa magaciina wata ee la isticmaalayo ee shali hawiye madax marka loo taagnay quslay oo maxaan ku yiraahdaa ice cream meelahan ku cunay maanta inay shaati kale ii soo gashtaan ay dhahaan qadiidi hawiya shalay aan jirno maanta jiro sheegis muxuu yahay hawiyo qaangaara noqoteen 30 sano wadankan madax idin kala fadhiyay mar shabaab idin la noqdo mar siyaasi mareykan intakiid meesha yimid madax idin ku dul noqdo haddana asagoo idin laay hawiyo san xal idin mee kasta madaxweyne xasan sheekh kaga dambeeyo madaxweyne xasan sheekh kaga dambeeyo adinkana dantiin aqoonsada wax la dhibaatayna oo dul fadhiyo canshuurtooda 100% inta laga canshuura 100% inta laga canshuura waa adinkee hurdada ka kaca intaasaan leeyahay